فيديوغان هدا aan duubayo wuxuu daba socdaa fiidiyoga hore oo aan kaga hadlayay don't buy house in Kenya buu daba socdaa waxa ka gadan guri Kenya ilaa aad ogaato mataqaanaa fiidiyogan aad daawato buu daba socdaa fiidiyogan oo developerska kaga hadlayay tan labaad hadda maanta kaga hadlayo waxa weeye waa locationka waa very important physical place waayo haddii aad u gadanayso gurigan invest in maalgashaano gadanayso haddii aad degaysaba locationku waa muhiim dad badan baa soo waca oo gabdho iyo wiilal soo wacaya war heeraniyow guri baan gatayo bal iisoo fiirinayo walaalo gurigaas maxaa ku dhacay ma dhammaan waaye maaqan waa waxyaalahan mawduuca kaga hadlayay weeye waayo developerska aad isticmaashay haddaa research ku samayn lahayd xilligaa ima soo wacdeenba walwal ma qabteenba waayo badanaa Soomaalida hadda guryaha dhisa wax u badan Kenya waxa weeye waa Soomaali iyo Chinese Hindi iyo dadka Kenyaatiga way ku jiraan laakiin wax u badan waxa weeye Soomaali iyo Chinese baa ku jira suuqa Soomaalidu markay u badan tahay waxa weeye afar nin baa ma taqaanaa partnership oo guri dhisaya ama shan nin baa guri dhisaya oo Soomaaliya ilaahay amarkii markay laba project dhisaan u kala kacdo way kala baxayaan wow way kala baxaan laba nin baa meel taagan oo Ismaaciil iyo jaamac oo kala ma taqaanaa baa noqday oo JV bay raadinayaan moogta inay guri qaataan oo kala dhul bay raadinayaan dhag guriga markuu laba floor marayo waa istaagayba markaas ku soo wacaya hadhow ninka wuxuu ku leeyahay ilaa ma taqaanaa wax aan maartay bahalkaysnayn oo lacag haysan oo bangiga lacag online oo kale oo dad lacag ururinaya baa maartay baad madaxa la gashay oo aad ma taqaanaa aad guriga gadatay markaas ku soo wacayaan ku dhahayaan niyo guriga bal soo eeg laba sano hadda ma taqaanaa wax kama jiraan taasna way dhacdaa kaaba si darantay marka guriga soo eegto aad leedahay guriga waxa ku yaalaa Sotsibi ku yaalaan ama Kilimani marka meesha tagto kaafiye kala dheeriba projectiga magaciisa marka aad geliso guriga ama xaawo balaas ha noqdo marka aad geliso aad meesha tagto mapka aad geliso tagto meesha ma aha oh my god wuxuu leeyahay gurigaas waa Westland ku yaalaa Westland marka tagto oo kale meesha guriga kuma yaalo wuxuu ku yaalaaba meel masayo degto iyo duurku ku yaalaaba marka hadhow kuwa aad guriga maamulaya xafiiska dhahdo warniyo ninkan maxaa beenta ku sheegteen maya hadde Westland meeshan waxba isma jiraan wax yar baa soo laabanay oo kale luuqasa u soo galay ma ogtahay waa 5 minute drive hadda qofkan ma sayba u sheegto duur mise Westland baa u sheegtay marka location waa muhiim dhib ma lahan adigu waa mashquulsantaa laga yaabaa ama track driver baa tahay laami baa saaran tahay highway adigu waa mashquulsantaa laakiin marka rabto inaad Kenya guri ka gato intaan lacagta shubin soo dirin oo ma taqaanaa deposit ku shubin qof maarta family-ga ama saaxiibkaaga oo Kenya jooga Nairobi jooga kale WhatsApp kugu soo dir pinka locationka projectka magaciisa ka bacdina isaga tagaya meeshii soo ogaanaya haddii ay Westland buu tagaya haddii ay Lafton haddii ay Kilimani haddii ay Kalosho haddii ay Heligaam haddii Backland qofkaas meeshii buu tagaya guarantee buu kaas siin ugu leeyahay okay hadda lacagta shubi kartaa deposit kana shubi kartaa meeshaas waa guarantee Kilimani guriga soo ku yaala AGA center way AGA CJ way oo ka Kilimani mall area-diisa way waa ka bacdi marka lacagta shubi kartaa oo deposit marka hore haduu aad qoliyaha aad ku heshiisan 30% ama 20% waa u shubay ka bacdina pick down waxa la dhahay jira oo payment plan-ka after 3 months ba hadda maartay sad qoliyaha maartay project wada aad ku heshiisan 3 bilood mar baa lacagta la diraa 3 bilood mar baa lacagta la diraa taasna waa kala doonaa pick down-ka iyo payment plan-kaasna waa kala doonaa marka waxaan kula daarmayaa please intaadan Kenya guri ka gadan developerska magacooda raadi oo research ku samay oo raadi intee ma taqaanaa guri ninkan soo dhameeyay developers hadda suuqa soo galay 2024 suuqa soo galay iyo developers 2010 suuqa soo galay isku baaxadna maaha isku quality-na maaha isku experience-na maaha waxa laga yaabaa developerska 2010 ka soo galay inuu 20 project soo dhameeyay ama 30 project inuu soo dhameeyay laga yaabaa kan 2024 ka soo wacayo kala xiiqsanna waxa laga yaabaa inuu gurigiisa ugu horeeyay yahay markuu second floor ma taqaanaa marayna istaago because wax experience kama haysto lacag ma haysto dadkaas lacagta ka uranaya JV buu ku soo qaatay waxa ma hay marka please intaadan guri gadan developerska background-kiisa soo eeg ogtahay ma taqaanaa wadamada reer galbeedka kale marka Ingiriiska ama Yurubta joogto kale wax ma taqaanaa Mareykankaas oo kale wax DBS oo criminal record-kaaga la eegaya marka aad ka shaqeynayso meelaha iskuulada kale carruurta iyo waayeelada kale iyo meelaha aad ka shaqeyso kale iyo keerka kale background-kaaga la soo eegay adiga background-kaaga waa ogtahay adiga in background-kaaga la soo eegayo qurbaha joogtay way gurigan background-kiisa soo eegay developerskiisa soo eegay waa khasab waa very important inaad soo eegto
intaadan gadan lacagta waayo lacagtan maaragtay waa usoo dhiiday baraf baa usoo martay cayraar kuma helin waa usoo shaqaysay marka war hadalkaa idinku badiyey Soomaali Maxamed waa idin salaamaya wassalaamu calaykum waa fiideogan iyo fiideoga inoo ku xiga باي باي خير بعدين رجعنا إناد لعقتين إلى شتان يجيبكين ماشي تقول نيسان وأنا على صوتان باي باي